السلام عليكم أصحابتنا قالي إيه كسر وهذا القناة كنا هاني يمان وعدوه برتين برنامج نيرالي جلية ما أنتوا وحيدي سوق بينا برنامج أما شاكو حيصله شاكذا سيون اللي هو ذاقي قف كمية أصحابتنا ونوصل دري وحين أودع أساسية مجاعي وكافية قصة ذي واسيدة أما شاكذا وحنا هاجبرية وأعدو في الفرعون كفتن بدن أو بالشجال reerkayguna waxa uu ahaa qoys reer guuraa ah waxaan deganeen gobol ka mid ah gobolada dalkeena Soomaaliya waxaan ahaa dhaxaad oo walaaladii qaar ayaa iga weynaa qaarna waa iga yaraayeen aniga waxaan hawsha guriga ka caawin jiray hooyada raaci jiray ariga waxaana ahaa qof howl jecel waxa jirta gabar walaashay ah oo curada reerkeena ah taas oo deganayd magaalada Muqdisho walaashay halkaas ayaa lagu qabay waxayna noqotay xaamilo cunugii ugu horeeyay ninkeedu wuxuu u ahaa ganacsade safra oo gobolada dalka geeya ganacsigiisa walaashay waa ay cuslaatay xogaana waa ay xanuunsatay waxayna u baahatay cid caawisa walaashay waa ay inoo imaaday waxayna hooyo iyo aabe ka codsatay inay aniga ka haysato si aan u caawiyo oo ayada u la joogo waxbarashana ay ii geyso waan soo raacnay aniga iyo walaashayda waxaana imaaday magaalada Muqdisho ma ahayn markii iigu horeysay magaalada Muqdisho oo dhowr jeer hore ayaan hooyo isu soo raacnay oo aan u imaanay walaashayda laakiin si fiican uma kala garanaynin magaalada Muqdisho walaashay ayaan caawinayay oo aan gurigeeda joogay dhowr asbuuc kadib ayaa waxa safar ka imaaday walaashay ninkeeda micnaha dumaashige waxa aan u diyaarinay qado qurux badan dumaashige kaligiis muusan ahayn waxa la socday wiil dhalinyaro ah misna ay shirko iyo saaxiibo ahaayeen soo dhaweyn kadib waa la qadeeyay waxa la iskeen baray aniga iyo wiilkii kaftan iyo sheeko kadib wiilkii wuu baxay oo wuxuu aaday xaafadiisa maalintii xigtay galabtii ayuu inoo imaaday xaafada waayo wiilkii iyo dumaashige waxa ay ahaayeen dad saaxiibo isku dhow ah runtii wuxuu ahaa wiil kaftan badan qurux Ilaahay siiyay misna deganaan ku darsaday xaqiiqadii waxaan ka helay habdhaqankiisa iyo dabcigiisa dhowr jeer ayuu inoo imaaday si wanaagsan ayaan isku baranay ilaa heer magaalada isku raacno oo uu jalaato isoo siiyo magaaladana isoo kala baro waxaan noqonay laba qof oo aad isku fahma maalinna ma dhaafi jirin anagoo is arkin ama wada hadlin waxaan dareemi jiray xiiso iyo inay wax badan ka maqan yihiin nafteyda waxa ay galay dareen jacayl balse ma garanaynin si aan u iraahdo waan ka helay ama waan ku jeclahay waayo aad ayaan uga xishoonayay waxaan isweydiin jiray talo dareenka ma ku kaligaaba mise waa kula qabaa la soco asbuuca dambe aad ayaad u mahadsantihiin dhageysigiina please subscribe share and like hana ilowin baleelka si aad ula socoto qaybaheeda dambe oo aad u xiiso badan aad ayaad u mahadsantihiin